السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا كسر وهذا channel كدوكسي ميديا وحودن كجي معنا حرونت مقالة لندن دالك إنجليزك وحنا شيء توصل إذا لنا سعود سينية أنا جو عبد الرزاق سولي علي ميلو بعض نقدر دعوة نسان حلو البيدين تها جورو البيدين تهبا وحنا دلله هاي وقت جهدي وعنا هذا مركو جور رئيس وحنا كشرنا بشي بركة maalmihii ugu dambeeyay raahdo 10 xitaa waanu dhaafnay maalmihii ugu dambeeyay ayaanu ku jirnaa waxaan rajeynayaa haduu eebeedmo bisha barakeysan khayrkeeda wanaageeda iyo muxuu inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasoo xijiyo dhamaanteen meel walba aan joogno dadkii muxsiniinta ahaa ee saa'imiinta ahaa ee Ilaahay dartii u soo maraa waxaan rajeynayaa in Ilaahay soonka ka aqbalo habeenka leeyatul qadarkana dhamaanteen Ilaahay kuwa waafajiyo hanaga dhigo waxaan mahad balaaran ugu celinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagaarsiiyay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ogsoonahay qaar badan oo inagoo kala ah inaysan soo gaarin bisha barakeysan ee bishii ka horeysay Shacbaan ama kuwii ka sii horeeyay ee u dhaxeeyay Ramadaan kan hadda la joogay kii kala bay geeriyoodeen sida darteed waxaan leeyahay alxamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh aan dhamaanteen soo wada gaarsiiyay aan lagu waarimayo kulay waa adduunyo inta dibadeed waxaan jeclahay maanta inaan channelka uga faa'iideeyo runtii barnaamijyadii aan ka hadli jiray dabcan sida tooska uga socon jiray mid kamid ah waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta qodob ku saabsan waxa la yiraahdo kalsoonida qofku naftiisa oo ku qabo iyo kalsoonida isaga lagu qabo noloshiisu ay muxuu ahaay qofka nolosha kala dhaxaysa ay ku qabtaan doonayaa inaan ka hadlo labada qofood ee lamaanaha ah kalsoonida ka dhaxayn karta waxa يعني ديسي كرا أو وناجين كرا أو إلا أي هير سر جارسين كرا إيه واحد بربرين كرا كلسوني دودا يعني جعلها مانتين أن كهلا أو ندي لو داعو حدي إلهي سبحانه وتعالى وقال هذا سيدا درتي حتى بقى ضب كنش كهر مرة وإلا لا بقى ضب أن سوقاته واحد بربرين كلسوني ده ومدة الصوماليات أما كلسوني ده روح بني آدم كأهل نول ruuxa lamaanihiisa ah ama rag ha ahado ama dumar ha ahado ee markaas nolosha kala dhaxayso waxa burburiya oo kalsoonidiisa dhaawaca marka ugu horeysa waxa la yiraahdo beenta hadii shakhsiga noloshu ay kala dhaxayso oo kugu barto inaad tahay qof aan cadaalad u hadlin ama xaqiiqda ka fog ama beenta sheega way adag tahay xitaa runtaada saxda ah inuu aamino oo qodobka koowaad waxa burburiyay kalsoonida waa beenta qodobka labaad waxa burburiyay kalsoonida waa tixgelin la'aanta waxaad ogsoon tihiin oo dhammaan wada ogsoonahay qofku marka uu tixgelin ku hayo xushmad ku hayo karaamo ku hayo wanaag badan ku hayo waxaad yani wuxuu ahaanayaa qof adiga shakhsiyan kugu dhaxnool oo qalbigaaga ku dhaxnool maxaa yeelay waa ka samaystay kalsooni buu ku siiyay tixgelin buu ku siiyay muxuu ahaay wax walba ku siiyay hadii laakiin kalsoonida oo kala qofkaasi haddoosan wax tixgelin ah iyo wanaag iyo xushmad oo ku siin waa qodobka labaad ee burburiya waxa la yiraahdo kalsoonida qoyska ka dhaxaysa ama isaaminaada qodobka saddexaad wax kala ma ahan maalmahan dambe markaanu nahay bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa dadka lamaanaha ah ee noloshu ka dhaxayso ee jacaylku ka dhaxeeyo wanaagu ka dhaxeeyo awlaadu ka dhaxayso kalsoonidu ka dhaxayso aaminaadu ka dhaxayso waxaad moodaa iyagoo nolosha shuraaka ku ah oo wada nool haddana inaysan isisiinin waqtiga munaasibka ah ama yani priority-ga yani qofka kale oo san siinin muhiimadda koowaad qoyskiisa bal inuu siiyo waqtiga ka soo haray intuu ku qaadan lahaa shaqadiisa markuu soo dhamaysto qofku intuu waqtiga soo hara oo nolosha yiraahdo balka waran xaaladda intuu fadhi ku dirirka jooga ama ay telefoonada ku hadlaysa ama nolosha sidaabaha kale ee qofku binaadinka oo mashquul kugu yahay inaan time ka la siinin bal markii amuurtaasi soo dhamaato kaliya in hambadi ama haraagi ama waqtigii markaas meel geeyay la waayay la isla soo aado waana arrin laga qurux badan yahay isla markaasna waa arrin labada qofood ee nolosha ka dhaxayso ay dareemi karaan oo ay fahmi karaan haddana isla markaasna ay isla barbar dhigi karaan
nolosha bilowgeedii markii nolosha la isku cusbaa mustaqbalkii wanaagii kalgacalkii nolosha cusub la yigleelay sidii qofka kale priority-ga u siinayay ama muhiimadda u siinayay iyo waqtiga haatan la taagan yahay ee laga yaabay in 2 sano ka bacdi ay tahay waqtigu 3 sano ka bacdi 5 sano ka bacdi hal baby oo jooga 2 oo jooga 3 oo jooga oo kale waqtiyada sida la isugu laayahay oo kale maadaama markii hore time-ka la isiin jiray haatan waqtiga la isku laayahay hooyadu waxay og tahay sidoo ku ahaan jiray xaajigeedu muhiimadda oo siin jiray saacadaha cayiman ee waqtigiisa ee xitaa hadduu shaqo ku jiro oo ka soo gudawici jiray waqtiga isaga ah intuu jidka ku soo jiro oo wici jiray inta uu sii socdo oo wici jiray yani waqtiga tirada badan leh markaas isaga farxad gelinaysa ee reerkiisii uga warhaayay ee kalsoonida u sameynaysa ee muxuu ahaayay ma sha Allah oo la qaadanay hooyadu way ka warhaysaa shala sidoo ahaa iyo maanta sidoo uu yahay marooda la qabaa ee lamaanaha arintaas way og tahay shala iyo maanta farqiga u dhaxeeya inta kaliya maahan ninka odaga ah ee meesha jooga ah shala sida lagu ahaa xaajidiisu soo wici jirtay iska warqabka iyo ka wardoonka xaajidiisu ay u sameyn jirtay shalay isaguna wuu og yahay shala sidii saaxiibadii ku ahayd ama maroodiisu ku ahayd ama lamaanihiisu ku ahayd iyo maanta sidee ku tahay waxaad moodaa marka nolosha markii dadku ay xoogaa ay maalmo ku jiraan bila ku jiraan sanado ku jiraan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 la iska dhalo in la kala xiiso oo xoogaa si loo kala mashquulo qofba intuu dareemo in sidii hore aan lagu ahayn waxay dishaa marka kalsoonida waxay baabi'inaysaa kalsoonida markaas qofka kale ah maxaa yeelay waqtigu waa shayga ugu qaalisan ee qofka aadanaha ah muxuu ugu faa'iideyn karaa noloshiisa waxbarashadiisa wax soo saarkiisa cibaadada alla iyo taqwada Ilaahay yani waqtigu wuxuu muhiim u yahay yani qof walbo noolo ah waxaad og tahay hadii aadan waqti u helin wax walbo aad doonayso inaadan gaaraynin dantii aad ka lahayd iyo sidii aad u lahayd intaba sidaas darteed qofku markuu ku siiyo waqti wuxuu ku siiyay wixii ugu qaalisanaa ee qof min aadana la siiyo wuxuu ka samaystay kalsoonidii ugu wanaagsanayd ee qof min aadana laga samaysto wuxuu ku dareensiiyay inaad dadka ugu horeysa adigu laakiin awsan aadan ahayn يعني قفك دتك ugu dambeeya ama inuu yani waqti meel uu kala geeyo waaye danihiisii ku soo dhameystay oo markaas yani restiga ama haraagi yara oo kula soo aaday sida darteed dhowrka qodob aan ka soo hadla qodob oo yani kalsoonida qoyska wax dilaaya qodobka ugu horeeya waa beenta qodobka labaad waa idin sheegay Soomaa waa xushmada tixgelinta iyo muxuu ahay qiimeynta qofka binaanka lagu sameeyo qodobka saddexaad waa waqtiga oo qofka kala siiyo laguma sharciyo ninka nodaga kaliya inuu waqtiga siiyo saaxiibada kaliya yani marwada kaligeedna laguma sharciyenin inay odageeda waqtiga siiso waqtigu waa wax la wada wadaago waa wax dhaliyo yani farxadda waa wax dhaliyo kalsoonida waa wax dhaliyo iska warqabka waa wax dhaliyo tixgelinta waa wax yani waraabiyo jacaylka iyo nolosha iyo muxuu ahaayay basic iyo asaaska nolosha labada qoys yani qoyskaas labada qofood ka kooban iyo intuu Ilaahay siiyay waxa dhisa weeyaan hadii marka aad garato wadiiqada ugu quruxda badan ee muxuu ahaayay arintaas ayada ah waxa yani ka badbaadaysa inuu burbur kalsooni ah ku yimaado reerkii ama ninka odaga reerku dhisan yahay aha ama marwada reerku dhisan tahay aha hadba ka doonto baahaw waxa meesha ka baxaysa hadii aad arimahaas ayada ka taxadarto oo aad diirada saarto oo aad qofkii waqtiga la qaadato oo tixgelin siiso oo xushmadii wanaag siiso oo kalkacal iyo muxuu ahaay abay abu waad la isku iimaataan oo beenta ka fogaataan oo runta isku qoodisaan oo xaqiiqada isugu soo dhawaataan duruuf walbo idin soo dhaxmartaa no matter waxa laga yaabaa inaad isugu samartaan markii aad is aaminsantihiin duruuf walbo oo idin soo dhaxmarta waxa laga yaabaa inaad isku jeceshiin markii aad is aaminsantihiin marxalad walbo idin soo dhaxmarta waxa laga yaabaa inaad isku qaadataan oo isku dul qaadataan markii kalsooni iyo is aaminaad idin dhex taalo shayga kaliya marka waajib kuga ah adiga qofka doonta ahaa waxaad ku qasban tahay inaad kalsooni iyo cadaalad
aad la imaato waqtigaagana inta ugu qiimaha badan leh ee ugu sharafta badan leh aad qoyskaaga geliso reerkaaga geliso awlaadaada geliso waana noloshaada adigu aad leedahay qaybtii ugu muhiimsanayd ee markaas wax la sameeyaysan jirin haddii marka inta ayada ah aad dhistaahi waa intii noloshaada adiga bilaysay ku dhisaysay ku farxad gelinaysay waxaad arkaysaa qoysaska waxa burburinaya lagu leeyahay qoys markii horeba yani ayaan markii la joogaba been isku bartay oo aaminaadii ka tagtay maxaa isku haynaya khaladka ugu horeeyo dhax yimaada way ku kala boodayaan waxaad arkaysaa qoys muxuu ahaay noloshooda markii hore aad u qurux badnaa laakiin sanado ka bacdi iscaayo isxagxagto isdagaalo oo iscaayo muxuu ahaay kalsoonidoodiiba aad iyo aad u daciiftay dagaalka ugu soo horeeya way ku kala tagayaan maxaa yeelay kalsooni meesha ma taalo waxaad arkaysaa qoys markii xaaladaha qaar ama yani marxaladaha qaar conflictiga ugu horeeya ee dadka bini'aadanka soo dhaxgala ama isku dhaca ugu horeeya ama isfaham darrada ugu horeysa ee markaas waxay doontabaha ku timaadee labada qofood soo kala dhaxgala inuu kala ceyriyo qoyskii isaga ahaa oo maxaa sabab u ah maxaa yeelay markii horeba kalsooni aad u weyn maysan dhex oolin ee waxaa dhex yaalay shaki dhanni iyo been qofka kale uu ku malaynayo tixgelin la'aan qofka kale uu ku malaynayo is-aamin darro qofka kale uu ku malaynayo iyo qofka kale isaga og inuu sabab u ahayn qofkii si maxaa yeelay waqtiba ma geliyo waxaad arkaysaa shaqa la jira ama marwada shaqay ku maqanta ama ninka odagaa shaqo reerka uga maqan yahay saaka marma uu baxay ilaa cawada 10 oo ka yimaado shaqadiisa intaas oo mar ayuu break time helayaa intaas oo mar ayuu helayaa daqiiqad ma weyn 2 ma weyn 5 ma weyn 10 ma weyn waa sugnahay shaqo walba la qabto break time leedahay haddana kuma soo wacay reerka marwadii ku soo wacaysa reerka ninkii odaga ahaa ee reerka lahaana marwadii ilmihii reerka ku soo wacay maayo ku soo xiriir maayo xaaladooda ku soo wardoon maayo sidii saaka loo kala tagaa loo kala maqay cawada la imaanaya ayuu la daalan yahay waa la kala dhacaya waa la jiifaa I know ظروفتا كانت marmarka qaar laakiin haddana inaad waqti u heshahay waa muhiim waxaan markaa rabaa inaan runtii hoosta ka xariiqno shayga ugu muhiimsan nolosha qoyska dhisahay waa kalsoonida qoys haddii uusan lahayn wax kalsooni ah noloshoodu waa burbur qoysku haddii uusan lahayn is-aaminaad noloshoodu waa socoto qoys haddii uusan waqtigii isku helin noloshoodu waa socoto halkaas ugu gudbaysaa qof adiga kula mid ah nin rag oo adiga kula mid ah ayaa inta waqtigiisa oo dhan soo gabagabeeyo ayuu waqti aad u qurux badan soo maciimay ugu talagalo marwadiisa intuu ugu yimaaday lagu labistaa la baxaa markaas magaalada la aadaa markaas la soo cawiya markaas maqaayada la isgeeya markaas la soo casheeya markaas casuumaadiro gaaban family time qosol iyo farxad reereen bashbash iyo baraaro ma sha Allah ma malayn kartid ayadoo dhaxda la haysto ayaa leeytime xaafada la yimaada markaas la wada jiifta ilaa maalinta labaad maalinta saddexaad isbuuc bil reflection ayaa qofka kale waqtigii quruxda badnaa ee macaana ee qoysku ay soo qaateen maskaxdeedu ku soo laabanaya adigu ma sameeysaa inta fikirtay kadib surprise ma uga dhigtay xaaskaaga ku tiri waa family time ayaan u baahanahay inaan wada qaadano waqti qurux badan baa doonaya cawada inaan kula qaato nolosheeni iyo jacaylkeeni iyo muxuu ahaayay waayihii baan rabaa maanta inaan update gareeyo ma tiri maadan orantaas okay taa waa qodobka laba ma ku fikirtay inta magaalada aado ood ogaato maalmo ka hor ama isbuuciyo ka hor ama bilo ka hor shakhsiga adiga kula nool ee nolosha kaala dhaxaysay ama mustaqbalka iyo muxuu ahaayay gurigii iyo yani noloshaada qaybka ah ama asagoo intaasba qaybka ah haddana awlaadaadii iyo muxuu ahaayay yani dhaqaayo